السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت بدن عفيما تاما يعني دين رجينيا مقال كان وحين كسو قادن دونا وين طلبحين كسينا نين حاصلا نينكني waxa uu sheegay sida qoraalkiisa ku xusan wuxuu yiri aniga oo jaban ayaan xaaskayga wax u doontay si fiican ma u kamid doona ayuu yiri marka koowaad walaalkan iyo walaalaha kale ee iyaguna xaaladan ku jira waxaynu sheegaynaa ninka xaaslaha ahi saddex xilli xaaskiisa inuu ka ag fogaado ayaa habboon inaanu u dhawaanin oo aanu kulan la sameeyo habboon saddexdan xilliga uu fracture-ka ku jiro fracture period waa xilliga ninku uu jaban yahay iyo xilliga uu ku jiro sickness-ka ama xilliga markaas uu xanuunsanayo xanuunka uu la daran yahay iyo xilliga uu poor nutrition-ka yahay ee aanu nafaqaysnayn ama jirkiisu aanu nafaqo ku filan aanu haysan saddexda xilli uu ka fogaan doonaa ama uu iska ilaalinayaa haddaba markay laftu jaban tahay waxa loo baahan yahay baanasho iyo daymo iyo in jirka la qabto marka unug la samaynayo ama lafta la xiriirinayo ama carjow marka dhaawacantay dib loo hagaajinayo dhammaan xilliyadaas oo dhan waxa uu baahan yahay in marka qofku uu nafaqooyin helo uu ka dhaxeli karo fitamiinaad iyo minerals iyo calcium iyo protein iyo vitamin C ayaa loo baahan yahay jirkiisu aad ugu baahan yahay haddaba qofku ninku marka uu jaban yahay wuxuu u baahan yahay baanasho inuu helo caano oo ka qayb qaadan kara caanaha full calcium-ka ee calcium-ku ku badan yahay sida caanaha geela si laftu ay u xidhiidhsanto sidoo kale waxa uu u baahan yahay in la siiyo cuntooyinka gal kale sida haruurka digirta galeyda cuntooyinka inta badan aynu baladiga niraahno ayaa waxay ka qayb qaadan karaan in kabitaanka ninku uu fiicnaado sidoo kale in baanasho la sameeyo oo uu borotiin heli karo oo cunto fiican oo markaa nafaqo leh uu heli karo laakiin xilligan lama doonayo jirkiisa ama nafaqadiisu inay kala dhimanto iyo inuu markaas uu macdantiisu ay baxday intaba sida in xaaskiisa la kulmo ama inuu kulama sameeyo sidoo kale xilliyada uu xanuunsanayo sida xanuunka TB-da marka uu qabo inta uu dawada qaadanayo uma dhawaanayo xaaskiisa xilliga waxa loo baahan yahay baanasho fiican oo markaas cuntooyinkii borotiinka lahaa iyo cuntooyin fiican oo uu dawada u qaadanayo xaaskana waa iska ilaalinaya haddii kale lagu guulaysan maayo bogsashada nabarka la bogsiinayo ama lafta la gabayaa si fiican laguma guulaysan doono ee waqti dheer bay qaadanaysaa xataa haddii lagu guulaysto dhinaca kale xilliga nafaqadu ay ku yar tahay ee poor nutrition-ka ninku uu dareemayo waxa uu ka fogaan doonaa xilligaana kulanka xaaskiisa isaga ilaa inta nafaqadiisu ay soo noqonayso waxyaabaha lagu ogaaday nafaqadu ay kugu yartay waxa kamid ah indhahaaga oo madoobaada awoodaada iyo tamardari enerjigaaga hoos u dhaca iyo sidoo kale amateedka ama xataa xagga gogosho qofku marka uu ku liidanayo intaaba inuu iska ilaaliyo saddexda xilli ayaynu kula talinaynaa inahaas ayaynu ku soo ururaynaa la sii wadaaga bulshadeena kale. Wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.